dowlad goboleedyadu iyo madaxda kale ee meel kasta ka jirta ee la doorto inay iyagu waddanka iska reebaan oo ay ku riixaan madaxweynaha markaa jooga iyo ra-iisul wasaaraha markaa jooga iyo inta xukuumadda ee la hoos shaqaysa bes ay ku reebaan iyaguna ay iska leexiyaan maxaa keena ma waddankay wax ku lahayn ma iyagan xil ka saarayn maxay tahay sababtu sababto haddii wax la isweydiiyo xalkaa la helaa soomaalidu wax isma weydiiso soomaalidu wax ma baarto soomaalidu isma waraysato marka idinkaan weydiinaya 55 naas horta sheergareeya midda kale kasoo jawaaba bal soo qabsada caaway waxaan rabaa bal idinka soo qabsada sababta waddanka loo iibinayo sababta shisheeyaha waddanka loo siinayo sababta keentay in waddanku uu dhowr qof oo markaa mas-uul haysa loo daayo kuwa kaloo mas-uuliyadda hayana ay ka doorbidaan inay boorsooyinka buuxsadaan ay ka doorbidaan inay maaragtay shisheeyaha u kala cararaan ay ka doorbidaan inay calooshooda iyo guryaho ay dhisan lahaayeen iyo dhaqaalehay heli lahaayeen bes ku xisaabtamaan laakiin wax kale aanu dan ka gelin markii la dhaho war waa qaldan tahayna qabiil loogu ololeeyo qabiil dabada loogu dhaqo qabiil loogu sabood gareeyo oo loo maleeyo inuu qabiil ninkaas u taagan yahay dadka qabiilada dadka ugu ololeeya ee madaxda meel kastay joogto hadday dowlad goboleedta iyo hadday meel kale joogtaba qabiilada u taageera baa iyaga baan weydiinaya su-aashaas ma dhaqaalaha iyo boorsooyinka lasoo buuxiyo qofka u horreeya soo qabsadhahay waa soo qabanaa caaw su-aalahaasaan rabaa bal inaan ku weydiiyo haddaa su-aal u hayso burhaan soo qabsa inaad balla u dhigo teleefonka bal soo qabsa caaw waa la iswaraysanayaa caaw bal waa isweydiinaynaa meesha wax ka qaldan yihiin ma waddankan ma markaa qolada haysata bes baa iska leh mise wuu inaga wada dhexeeya oo waxaan wada leenahay oo fanaaniintii waaga adduunka nabadaha ay ka heeseen oo ka hadleen oo markuu qofku dhinto la dho alla hebel waa nin wadaniyu ahaa hebel calanka ha la saaro hebel maaragtay aas qaran ha loo sameeyo hebel maaragtay waddanka ha lagu duwo hebel wuu ka dardaarmay markaas maxaa loo dhahaa laakiin hadda markii la joogo maxaa laba qof loo siiyaa ama dowlad markaa meel haysata loo siiyaa kuwa kaloo meelaha haysana ay daba dhilif u noqdaan oo ay ummadda u gataan oo iyagu calooshooda ugu shaqeeyaan oo maaragta qabiil loogu difaaca su-aalahaas dhan baa war qabadee wuu dhacayaa soo qabaa tiri mana qabanaysa balla u dhig teleefonka qabo wuu dhacaa qofkii u horreeyo soo dalbaday qabo accept gare waa kuu jeedaa burhaan qabo okay burhaan waa ka dhacay wuu qabsoomi waayey adaa wax kaa qaldan yihiin marka ka gudub qof kalaan sugaya bal soo qabsada su-aalaha soo akhriya soo qabsada anna waa in weydiinaa because waxaa muuqata xataa shacabka nafkiisu inay waddanka u arkaan markaas haddii nin dowlad goboleedii meel haysto qabiilkiisu inay u arkaan inuu waddanka ninkaas qabiilkoodana meeshuu haysto uu leeyahay inta kaleetana ninka kaleeto uu leeyahay laakiin waddanku aanu ummadda ka dhexayn waddanku wax la wada leeyahay ahayn waddanku aanu ahayn wax la wada difaacdo cadowga laga wada difaacdo cadowguna aanu hadduu yimaado aad u malayso inuu qabiilkaas aanu aadayn oo qabiilkaas aanu weerarayn oo qabiilkaa aanu gumaysi gelayn oo qabiilkaas aanu cunaqabatayn saarayn oo qabiilkaas aanu baaba'ayn laakiin ay aaminsan yihiin inuu maaragtay qabiilkan hadda haysta ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama xukuumaddiisa bes in dhibku ku dhacayo in waddanka iyaga lagala wareegayo inay waddanka iyagu leeyihiin maxaa keena sababahaas ma been baa isu sheegnaa ma nimanka dowlad goboleedyada baa maaragtay aynu ka dooranaa midba midku u liitay iyo midba midku ka xumaa aynu ka dooranaa ka soo qaadanaa ma innagaa maaragtay xumaanta iyo qabiilka u nugul maxay tahay sababuhu soo qabsada dee hay fiirsanine barnaamijkana sheergareeya idinka aynu weydiinaa 60kiina meesha ku jirtaan ku weydiinaa soo qabsada burhaan waa soo noqotay laakiin haddaa markaan qaban weyso this last chance ay qaba hadda wuu kugu soo maqan yahay waxaad bal hayso aan kaa dhegaystay soo qabsa burhaan waa kaa go-ay bes mar dambe hay soo dalbanin bliis ma qabanaysid ciyaar bay kaaga jeedaa marka waxaan leeyahay yaa waay haya bal isweydiiya because anu waxaan u jeedaa balaayada iyo waddanka iyo maaragtay mustaqbal xumada iyo cadowgu inuu dhiirado iyo in cadow loo shaqeeyo iyo in maaragtay dowladda loo arko cadow laakiin meelaha kale markii la aadayo shisheeyaha la aadayo cadowga la aadayo la isugu hambaliyeeyo lagu faano lagu farxo isaga nafkiisa u tay iyo suud adag u xirto marka maxay tahay sababta keenaysa waa maxay sababta keenaysa degan soo dhawo walaashay waa ku salaamaya naadir laan baan ku taagay soo dhawo boqorad marka
see marka maxay tahay ma damiir xumaday ka mid tahay maxaase nimanka kale oo madaxda oo meelaha ka taliya ay waddanka u dhaafsadaan inay iyagu shilin helaan ay u dhaafsadaan in iyaga maaragtay keliya ay noolaadaan dadka ay matalaanna looga celiyaayo loogu arkaa inuu hal qabiil keliya meesha u joogo maxay tahay sababahaas dhan baan rabaa bal caawa inaan weydiiyo soo qabsada nin kastoo jawaab u haayana waa rabaa kii comment soo qoraaya kii soo qabsanaya haddii kale been baad sheegaysiin because runta ma rabtiin dadka waddanka duminaya oo waddanku ka deglaaya waa nimanka xukuumadaha haysta waa nimanka dowlad goboleedyada ah waa nimanka madaxda ah ee dowlad goboleedka ku jira marka maxay tahay sababta iyagan u diiday iyagana u ogolaatay inay cadowga u shaqeeyaan madaxda markaa haysatana ay waddanka u siiyaan maxaa gumaysi hadduu imaado iyaguma ka badbaadayaan bal qofkii su-aal u haaye iyo qofkii jawaab u haayaan rabaa inuu soo qabsado maxay tahay sababtaas ma dowlad goboleedyadu ma gelayaan miyaa dhibkaas iyaga haddii hadda waddanka la gumaysto oo la qabsado qofkanaan soo qabanaa iyaga gumaysi ma gelayaan miya hay soo qabo abuu soo qabso iyaga gumaysiga way ka badbaadayaan miya iyaga dhib kuma taabanayo miya iyaga qabiilka difaacaya hadhow difaaci doono u taagnaan doona miya iyagu dhibka waddanka ka dhacay 30 sano ma ka badbaadeen oo waxaan ummadda ku dhicin bay iyagu haysteen oo faa'iido aan ummaddu helin bay haysteen maxay tahay sababta ku kalifaysa inuu qofku dowladdana la coloobo dibadda iyo shisheeyahana uu ku farxo oo u hambaliyeeyo oo loogu sacabtumo isaguna uu suudad waaweyn jaakada u xirto qarac u dhigo connection ay qab salaam calaykum abu السلام عليكم أبو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وقوقاي سعودك وقوقاي ما مقشا واكم غلاني ها اوكي waxaan ku weydiinaa walaal horta aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka adiga la soo qayb qaadatay qofkii horeeyana aad tahay waxaan ku leeyahay thank you so much marka waxaan ku weydiinayaa caawa su'aal baa taalo oo roobal aan rabo inaan wax ka ogaado waxa sababay su'aashaan ku weydiinaado maadsan maxay tahay waddanka horta sidiisaba yay tahay inuu difaaco ma madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo xukuumad kaliya mise shacab iyo xataa gobollada kale oo madaxda haysata waxay u leedahay xaq inay difaacdo waa mid su'aasha labaad waxay tahay maxaa haddii gumaysi imaado dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah ama haysta dowladda diidan maaragtay cadowgana aadaya ama u sacabtumaya ama soo dhawaysanaya ama jecel wax kastoo dowladdaas burburinaya iyaga haddii gumaysi yimaado ma ka badbaadayaan 30 sano oo burburka lasoo marayse ma waxaan ummadda aanay haysan bay iyagu haystaan oo gaareen oo ku faraxsan yihiin oo dowladda ku nacayeen bal ku socayna adeerado mahad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا مغلا سما واكم مغلا سيفي عن كسر على ميجا كوابيا ها ولا هدي أن كتشوا بسؤالها سؤال شهري دلك يا دفاعية دلك مدحوينها يا برايم منستر كوكلية ما دفاعيان دفاعي سوحي أطلع الشعب كجود بأطلع بدوينها الصوماليات ملكستو يشوغان دلك يدبدبا أرنتان دلك معارض كاه وحاول يبرنيستي inay waxa weeye Soomaaliya iibsadaan hadda ka horna hore u iibsaday oo ognahay waxa weeye oo iska cad in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo warjoostaan ayaa loo baahan yahay sababtoo ah waxay doonayaan inay cirligeena iyo sharafteena ku iibsadaan xoogaa yar oo hal maalin ay ku qadeeyaan taana waxa weeye ka aqbali mayno haddii aan horay u ilduufnay mar dambe ilduufi mayno maanta waan soo joodnaa indhaheena shanta ah waanan iska celinaynaa dadka Soomaaliyeedna waa inay ogaadaan 1960kii markii xorriyadda aan qaadanaynay dad baa waxay diidanayeen xorriyadda in la qaato oo waxay ahaayeen pro Italia waxay lahaayeen xorriyadii aan qaadanin gumaysigaas aan ku hoos noolaano marka walaal waxa weeye dadka hadda joogana kuwa ayaga ahaan bay la mid yihiin adduunka lama arag qof dalkiisi dal cadow ku ah oo la dagaalahaya oo dagaal kula jira oo baddiisi iyo barigiisaba inuu qaato doonayo qof la safan oo dhahayo waddankaas saxan anigu waxaan booran lahaa in la isweydiiyo dadka ayaga ama Soomaaliba mise waxay u shaqeeyaan wadamo kale marka haddii waddan kale uu ahaan lahaa oo caalamka ka jira iyo shuruucda u taala dadka noocaas oo kale waxay istaahilaan in maxkamad la soo taago oo la xirxiro oo maxaan ku iraahdaa shuruucda waddankaas
ay qabtaan marka waddankeena iib ma ahan annagaa joogna waan difaacanaynaa dastuurkana waxaa weeye madaxweynaha iyo prime ministerka keliya inay difaacaan maahan annaga dhan inaan difaacno ciidamadeena garab istaagno dowladda garab istaagno hoo iyo hiilba ku taageerana looga baahan yahay walaal maasha allah marka sideed u aragtaa nimanka dowlad goboleedyada ee ku faraxsan diidan inay dowladda la shaqeeyaan ama dowladda xataa wax ka dhigay laakiin dibadaha u dhoofaya maxay tahay jecel maaragtay meelo kaleeto ka degaan dadka cadowga dowladda u ahaa ay u tagaan oo waddanka dhibta aragta ku haya hadda waa aragtaa xataa inay naga burburinayaan meelihii dadka masaakiinta aynu $10 iyo $20 iyo ugu diri jiray marka sidee dadka u aragtaa maxayse tahay dadka ninku markuu madaxweyne noqdo qabiil kaliya oo difadiisa ay u difaacdo oo isaga kaliya u aragto iyada kaliya u taagan yahay maxaad ka dhigaysaa walaal taa waxaan ka oran lahaa dadkaas ayaga ah dowladda iyo shicibkaba inay u aqoonsadaan inay yihiin khaa'imul waddan dad waddankooda khiyaanaya oo doonaya dalkooda inay iibsadaan maamul goboleedkana sidiisaba waxaa weeye hadda caqabad soomaaliya dowladnimadeeda hortaagan sababtoo ah waxaa weeye lama dhihi karo maamul goboleeda waxaa weeye dowlado dhisan weeye oo awood leh waa inaanan ogaanaa shacabka soomaaliyeed waxaa la yidhaahdo maamul goboleedka iyo federaalka waana loo sameeyey waxa annaga aan raalli ka ahayn ma ahan waxaan dooranna ma ahayn dowlado waxaa noo sameeyey dariskeenna ah oo cadow nagu ah oo diidan soomaaliya inay tillaabo horey u qaado sababtoo ah waxaa la ogaaday soomaaliya waxay isku dagaaleen waagi hore qabiil qabiil waxay isku dagaaleen arrimo kale oo diindiin isku dagaaleen marka barnaamijyadii soomaaliya la isku layn jiray markay dhammaadeen baa federaalism la keenay si waqti hor leh iyo 20 sano hor leh nooga cunto oo dib noogu dhigto marka arrinkaas waxaan leeyahay dadka ayaga waxaan u aqoonsanaynaa anigana shakhsi ahaan aan u aqaanaa inay yihiin dad khiyaano qaran sameeyey la iskana qabto laga hortago maxaa inala gudboon marka adoo kusoo gabagabaynaysaa maxaa shacab ahaan maxaa inala kala gudboon maxaanse maanta waxay taagan tahay waa aragnaa maanta meesha ugu xumayd bay taagan tahay waana la kala baxay dadka oo qaran dunis iyo qaran baa la noqday maxaa inala gudboon marka inta waddanka jecel maxaa inala gudboon aan ku talin lahay meelaha ay haystaan dadka ku nool kula talin lahay walaal waxaa inala gudboon oo waxaa weeye shacabka soomaaliyeedna aan ugu baaqayaa in dowladdeena aan garab istaagno dowladda waxaa weeye hiil iyo hoob aan garab istaagno khaas ahaan dadka qurbaha joogo oo awoodo dowladda inay kaalmeeyaan ciidamada waxaan ognahay inay hadda dagaal ku jiraan dagaalada ay bilowdeen looga saari lahaa nimankan indhaha duuban looga saari lahaa dalka dagaalka asaga marka inaan taageerno dowladda oo ciidamada waxaa weeye dowladda accountkeeda aan lacag ku shubno qofkii awoodo $10 ha ku rido 20 30 50 100 qof walba waxay tabartiisa ay tahay midda kale oo nimankan maxaan ku raahdaa maamul goboleedka ah dadka shicibka ah meel kasta ay joogaan shanta maamul goboleed maamul kasta waxaa weeye dadkiisa shicibka ah ku mudaharaadaan ha laga hor imaado ha la diido ha la dhagax tuuro markay aadaan wadamada dariska ay soo noqdaan oo guryaha kusoo noqdaan waxaa weeye ha loo diido inay xafiiska fadhiistaan dadka soomaaliyeed dhammaantoodna saasa kula talinaya aad baad u mahadsan tahay burhaan aad baa walaalkay u mahadsan tahay adigu aad iyo aad baan kuu aye walaalay ku barakay thank you so much maasha allah markaasoo kale moral helaa moogta markaan arko wiil weli wax dareemaya saan u arkaayo balaayo un qabiil ka hadlaysa balaayo un qabiil qof ku sabood garaynaysa balaayo un dadka kala goynaysa balaayo dalkiiba u aragta in maaragtay hal qololeeda ama hal qofoo markaas 4 sano iyo 3 sano iyo haysanaya uu leeyahay markaan arko baan waxaan arkaa wiilkaas oo kaleeto iyo kuwa lamid ah markaasaan baalal yeeshaa u duulaa marka waxa weeye allaha noo badiyaan leeyahay ragga sharafta leh inta xunxunna waxa weeye waa la gaaray xilligooda anigu waxaan arkaa guul baan arkaa waxaan arkaa maanta in la gaaray meeshii ugu dambeysay awal way noo qarsoonaan jireen bustahay ku hoos jiri jireen go'aas saaraan jir war soo qabsada intaan hadlaay laakiin maanta waa kala bax iyo waa kala hufkii iyo kala haadintii baa liyi kala hufkii iyo kala haadintii marka waxaan leeyahay maanta guushii ugu weyneyd waa socotaa waana kala baxaynaa maanta waa la kala baxaya waxaa la noqonayaa okay burhaan markaan allah kuu sahlo haye qababala u dhigo in adeer wuu kugu soo maqan yahay burhaan waxa weeye anigu waxaan arkaa maantay in la kala baxay shacabkii wuu kala baxay
dowladaha iyo nimanka madaxda aan ka dhiganana way kala baxeen mid hore noo soo maray mid hadda haysta mid qaban doona wax badan baa kala baxay kuwa hadda usoo socda guushu marka maanta way taagan tahay maxaa inala gudboon marka maxaa inala gudboon wax baa soo qabanaa wiilkan baa wax yar salaamu calaykum السلام عليكم. calaykum salaam ku soco أبا horta barnaamijkaaga aad iyo aad baan uga helay waana barnaamij aad u wanaagsan marka kolley su-aashana waan dhegaysanaya aad weydiisay inanka iga horreeyeyna aad buu uga jawaabay oo aad u fiican buu uga jawaabay waana la qabaa maxaa ku daraysaa waxaan ku sii dari lahaa sug daaqada meel aad u yara buuq badan baan ku jiraa waxaan ku sii dari lahaa uun horta mucaaradka nimanka la yidhaaho mucaarad maaha mucaarad waxaa la yidhaahaa kuwa wax saxa oo wixii dowladdooda ka qaldan saxa sax waay laakiin mucaarad dowlad kale kuu soo raacaya oo haddii hadda jubbaland oo dhan la qabsado oo kiya qaadato kule ha qaadato farmaajo macnaha intuu macnaha aan u noqon lahaa ma garanaysaa wax walba waa istaanba inuu farmaajo leeyahay waa dad aad daciifiin oo ah siyaasiyiinna way sheeganayaan ma garan waay kuwan maamul goboleedyada sheeganayana dee waaba nimankii yidhiba xiriirkaabaan u jarnayba dowladda dhexe oo imaaraad carab oo annaga duulaan nagu ah oo baddeennii iyo badakedeennii duulaanka ku ah ayay macnaha garab siinayeen oo ay isku garabsadeen intay kismaayo ku shireen cadow kalena maba jirinba oo dowladda soomaaliya maba lahaynba mucaaradka ay lahayd mucaarad saxa anu maba aragba inta siyaasiyiinta isku sheegtaa welibana jagooyinka ugu sarreeyey ee dalka ka soo qabtay ee ra'iisul wasaare lahaa inay cabdirashiid ku jiro uu ku jiro ninka la yidhaaho isheeg kii hadda ka tegey muxuu ahaa puntland xukumey uu ku jiro oo ahaade ninkii ra'iisul wasaaraha ka ahaa 2 jeer ka noqday soomaaliya ayaa la jiray markii uu macnaha kursiga ka degay buu wuxuu noqday macnaha wuxuu la soo jirsaday dowlad kale soo raaca adduunkana kuwaas macnaha wiilkani wuxuu yidhi waa la xiraayo waa la daldalaaba macnaha xiritaan ma aha waa khiyaano qaran weeye ma garata mucaaradkana waxaa loogu talagalay inuu wax saxo oo daldaloolada iyo dhaliilaha inay saxaan waa sax oo ay sida qaabka wanaagsan u saxaan laakiin daldaloolo waxaan mucaarad baan ahay oo welibana waxaan rabaa inaan madaxweyne ka noqdo soomaaliya oo haddana garab waxaan soo siinaya kenya sidee u aragtaa adoo soo koobays dad badan baa isoo qabanay caawud waxaan rabaa jawaabahaasaan raadinayaa sideed u aragtaa maaragtay nimanka dowlad goboleedyada madaxda ka ah maxaase shacabka nafkoodu ay inta maxay uga hadli la'yihiin qaladaadka jira maxaa hortaagan macaburin baa jirta ma qabiil baa jira maxay tahay sababta keenaysa in qabiil maaha waa dan shaksi shacabkana waxaa la yidhaahaa maliibanayaashii lagu liibaanay oo macnaha maba garanayaanba ma garata bini aadanka aad aragtidna inta wax garata ama wax alifta iyo inta wax loo sheego oo miidiyaha ka maqato oo iska qaadata eedhade inta wax maqashaa soomaalida ku badan soo moogid inta wax garata ee iyagu caqligooda wax ku garta way ku yartaa oo ama wax fahma ama wax darsa ama realize-ka ah ma garata maxaa adoo soo koobay maxaa taloo bixinaysaa dee waxaan dhihi karaa dadka adiga in looga badbaadi karo arrintan waxaa looga badbaadaya eeg 3 sano waxaa qaatay maamul goboleedyada oo uu ku jiray istakiin kan kale hadda ka tegey oo dhammaantii qoladii xulufada sidii loo burburin lahaa kuwaasoo aan la burburinna waxba macnaha ma soconayaanba ma garata macnihii waan fahmay ayagoo aan la burburin oo aan laga takhallusin oo dad dowladda la shaqayn kara oo ay isfahmayaan oo isku beej yihiin ayagoo aan la keenin wax soconaya ma laha marka waa inay leedahay waxa kaliya lagu badbaadi karo waa dad wadaniyadii ku jirto
oo dalka meelahaas loo dhiibo kaliya lagu badbaadi karaa ها waxay ku leeyihiin maxaa dawlad goboleedyada laga rabaa bay ku leeyihiin maxaa laga rabi waaye dadku maxaa dawlad goboleedyada dawladdu shacabku waxay ku leeyihiin maxaa dawlad goboleedyada laga rabaa war dawlad goboleedyada waa kuwa shacabka nafkiisa qabiil baa ka hadlinayo oo qabiilka markaa meesha haysta baa ka xoog badan kuwii kaleeto oo isagaasaa marka wuxuu yahay kan kaliya ee hadla kan kaliya xumaantaas qofkaa ku raaca ma la isdhihi karaa kuula muuqata adiga arrintaas sababta qabiilka waa waxa siyaasigu adeegsado waa sidaa dee awrkaana lagu kacsadaa laakiin dadtooda ayagu dadtooda maba garanayaanba waa dad lagu shaqaystaba aad baan kuu salaamaya aad baa u mahadsantahay thank you so much sidoo kale aad baan kaaga mahadnaqayaa aabbahay ayo walaalkay macaan aad baan kuu salaamaya ما شاء الله دلنيردي والله بالله أنا قهرت ويا دلنيرة أد بقى وجع على دلنيرة مركي دينا وناكسن كهلان واحد يفتوى ويا مركا أركويل قبيل يقولون كجرون سقي اسكو عيارة مستقبل كيس ينور ساقبصو ما أنت نساقب على وقوسه وعي ولا الكيف ما يعيش وقت آخريسه جبهد باشا جبهد ساقب صبر ساقبه ولا ساقبه وقتي هادو مني قول يا قبني ما ليه هرت وحا موقته والله بالله وان دلاله وان كله وان دلاله ساقب سينادر ساقب ادو كوغو سو مقنيه dad baa leenku ku jira please marka waxaan leeyahay waa guul iyo gobonimo horta in dhalinyaradu wax fahanto oo maaragtay maanta horta la fahansan yahay maanta waxaa socota waa maalin la kala baxayo waa maalin guushu ay taagan tahay doog soo qabtaa qaban weyse qabo haye waaye marka daahir socdaala ujeedaa waa kusoo qabana adigana waa kusoo qabana adigana sida loo kala horeeyaa inii soo qabana wiilka uu qabsami waayo wacdi baan wacay soo qabso wacdi soo qabso caawo waxa weeye waa kala bax nin walba ra'yigaaga dhiibo kii aan soo hadli karin oo commentiga soo qor waa inaan saa u badbaadi soo dhawaad ماما يا جوجا اوك سلام يا مي مقشع iyo dadka ku dhageysanaya dhamaantii waa idin salaamaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma garat waa kaaga mahad celinayaa maamo oo dhalinyaro ah oo dhalinyaradeeda ku dhex jirto oo maxaa la dhahayay oo fahansan oo maalin xabsiyada kala hadlayso maalin ciidanka hala taageerdhehayso oo maalin meesha halaga kaca dhehaysa inaad tahay waa kaaga mahad celinayna ma garat su-aashii aa weydiinaysa dadka maxaa laga yeelaa dadka dowladaha muxuu ahaa shisheeyaha taageeraya dadka raacaya horta maamo muhiimadda waxaa waaye in qofka marka hore lagu soo barbaariyo waa horta wadannimo dadka 20 sano hadda jiraan waa ogtahay waddanba may soo arkinba ma garatay waa dad qaxooti ku soo koray ama qurbo ku koray ama Soomaaliya oo dowlad la'aan ku koray ma garatay soo marka annaga social media ku jirana looga baahan yahay bal iyaga marka ka socon marka anakaabana looga baahan yahay u maleynaya intanada dowladaha arkay ma arkino iimaylaha dowladaha ay joogaan inta dowlad soo aragtay inay u sharxaan balorti waxa dowlad ay qabato inay dowladda dalka difaacdo inay badda difaacdo inay muxuu exactly waxaa jira dad dhalinyaro annaga da'deena oo weligoodba wax dowladda dhahaba aan baarkinba indha saarinba ma garatay oo ka war dadkaas dadkaas dhalinyarada oo weligood dowlad aan arkin oo hogaamiye kooxeedyada dowladda u malaynayo ama qabiilkooda qabqablayaashooda dowladda u haysto kuwaasaa waxaa la rabaa in laga
in laga dabageeyo waxa dawladda ay tahay dawladda inay tahay mid cirka ilaaliso mid badda ilaaliso mid ciidamada qorato mid diyaaradaha iskale mid dadka muxuu ahaa mas'uulka ka waxaas dhan in la baro horta dadka bal hadda tan daada ka yar ilaa iyo 30 oo aan dawladnimada arkin kuwaas waay kuwa lagu shaqeysanayo oo asagana laga dhiganayo oo lagu xamaalanayo sabaa girno maamo horta dibka ugu weyn waxa waaye oo nimanka ay sheegaysa maamul goboleedka iyo hogaamiye kooxeedada cidna aysan u ciseenin oo dawladdu u ciseenin dawladdii baa waxay salaheen awood ay isaga dhicisay iyaga ma garatay waan gartay marka waxa loo baahan yahay waxa waaye annaga oo dhinac ka wadna wacyigelinta iyo muxuu ahaa tabliiqa dhanka kalena in laga wado dawladda ciidankeeda in awood la yeelo in dhaqaale loo aruuriyo dadkan dhalinyarada ah oo ayaga dhiigooda keenaan in la helo dad wax tarayaan oo dhaqaale u aruurinayo oo muxuu ahaa social media u soo galayo oo aaminsan oo ay arkayaan inay ka dambeeyaan oo ay u danqanayaan oo wax u soo aruurinayaan oo daba socdaan ma garatay ما شاء الله وانقرت marka waxa loo baahan لكن هذا على ولكم maamo waa mahadsan tahay horta maamo waa la kala baxaya sidoo ku sheegay wiilka hore wuxuu ku dhahay maalintii xornimada aan qaadanayni oo la dhahay Soomaaliya ha xoroodo oo Talyaaniga ka kaco Ingiriiska ka kaco dad baa waxay lahayn Ingiriiskii Talyaaniga han heestaan oo waa la joogeynaa oo adoonnimada aan ku jirno oo dawlad la'aanta aan ku jirno oo aan ahaano dad la gumaysto oo xoolahooda la dhoofsado oo beerahooda la tabcado kuwii oo kale lama weynaayo sanaada kernino noociyo kale way joogaan maanta sama faamino qabiilna ma lahan oo qabiil looma saarin karayo danta maxaa la dhihi jiray shakhsi iyo laba shakhsi dartood waa wax ay u ordayaan waxaana ku awrkacsanayo niman oo afar jeeblayaal ah oo ayaga ay dantooda ku jirto in dalkan dhibaato ka taagnaato laakiin muhiimadda maxaa waaye aniga aan soo jeedinayo oo dhalinyarada iyo dadkana dhageysanayo aan ugu baaqayo war heede dal aanan ciidan lahayn adduunkan kama shaqeeyo dal aanan ciidan uu isaga dhiciyo oo badiisa aan muxuu ahaa xuduudadiisa xiran karin badiisa aan yar waa aragto laakiin waxay u baahan sida aad sheegtay inaynu garab sabood garayno oo maalin walba wayn awoodnaa marka maamo dadka horta waxay u baahan yihiin dad wacyigeliyo oo wax ka dhaadhiciyo oo dadkan sawiradooda u keeno fiidiyoyaashooda u keeno si ay u dagaalamayaan dawladda naftirkeeda meelo badan oo kamid ah way ka jiiftaa sama garanano waxa is leedahay yay isku haleynaysaa laakiin se dadka naftirkooda in la gubaayo hal waxaan ku sheegaa maamo dawladda haday sameeyay dhaqaale ku sameeyay dawladda Soomaaliya lacagta Soomaaliya gasho oo xawaaladaha lagu diro ee danta la dhahay markay ugu yaraato $1 bilyan oo dollar way dawladda Soomaaliya ma awoodi weyda inay dhahdo xawaaladaha $1 hana loogu daro lacagta dibadda laga soo diro ma u maleynaysaa madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha inay garan waayeen arinta ya ma u maleynaa aqligaas inuu u shaqeyn waayo marka tagsiga la qaado iyo kuma jiraan miya kuma jiro waxaan ku dhahay lacagta Soomaaliya gasho oo dibadaha laga soo diro waxay dhantahay $1 bilyan oo dollar $1 billion waa la dhahay hadii dawladda Soomaaliya markay ay sanadkii laga hadlaya hadii dawladda Soomaaliya naftirkeeda ay ka dhab tahay oo madaxtooyada dadka ku jira ay ka dhab tahay oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ka dhab tahay intay xawaaladaha u yeelaan waa la yaqaana waa dahabshiil waa amal waa kaah waa taaj waa la yaqaana maamulayaashooda intii madaxtooyada looga yeero maala dhaho lacagta laga soo diray dibadda $1 noogu dara $1 dadka dibadda jooga adiga waa bixin lahayd aniga waa bixin lahaa cid kasta way bixin lahayd ma garatay sababta marka dawladda naftirkeeda afka u haysato oo afka xiray afka al xirta maxay tahay naftirkeeda yaa waxa moodaa inaysan waxba kala garanayno waa meesha aan dhaho la taliyayaasha dawladda iyo kuwa madaxweynaha in la kala diray u baahan tahay haddii lacagta Soomaaliya soo gasho oo dibadda laga soo diro la dhaho waxaad noo saartaan 50 cent hatta $1 iska dhaaf 50 cent oo dadka dibadda jooga noogu dara lacagta $100 oo la soo diro 25 noogu dara haddii dhahaan dawladda Soomaaliya lacag way heli lahayd ee ku maamusho ciidankeeda ma garatay laakiin se waxa moodaa dadka dawladda la talinayo inay meesha u imaadeen mushaar inay qaataan aniga madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha 100 mar waxaan dhahaa war la taliyayaashan dalka jooga hadda hala kala diro oo dad kale hala keeno
sababta maxay tahay fikrad ma keenayaan weli ma aragtay fikrad madaxtooyada ka soo baxday oo la leeyahay la taliyahaasaa keenay adig weli ma aragtay may sababta marka waa uu la taliyo ku yahay oo xafiiska madaxweynaha u dhex fadhiyo maxay tahay hadda kuwa daba socdo China markuu Japan aaday oo lagu leeyahay waa la taliyayaasha arrimaha dibadda yaa lagu leeyahay oo waxay kala taliyaan ma garanaysid ma waxay garan kari waayeen lacagta Soomaaliya waa la soo diray adiga lacag waa diray ma islaama ma iyada naftada cadow ma idii ma fiiri madaxweynaha wuxuu leeyahay nin kala taliya dhaqaalaha madaxweynaha wuxuu leeyahay nin kala taliyo arrimaha amniga wuxuu leeyahay mid kala taliya arrimaha dibadda wuxuu leeyahay mid kala taliya muxuu ahaa intaas oo la taliyayaal oo yaa xafiisyo ku leh madaxtooyada dhexdooda ma la garan kari waaye in la dhaho lacagta dibadda laga soo diro oo adiga aad dirto oo aniga aan diro oo qof kasta uu diro war 50 centi saara nimanka xawaalada iskale way saari lahayd ilaan dawlad baa tahay adaa siiyay muxuu ahaa سماكرو أقوسي كوشة قيسنا حوالها ياسي العقد ديبت اللي جسوا قلنا يا لها الله مركي لقبصته أو يو أنت قبصته أو يوروب قبصتان مريكا قبصتان يا وايدتك وهلا سود nimankan xawalayaasha markii la qabsado oo la dhaho argixisa idin soo maray lacag sanadkii yaa u hadlo oo United Nations uga hadlo yaa adduunka uga hadlo wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya maaha wasiirka arrimaha dibadda يا سفارة سو مركز سببتي لو جرين كري لا إلا نو لعبت أنت سو مليون أو دولار وطن كسوقشة أنا كنت سنتين نصارى وحد هذا دولة دا إسكال ما هذا ديدي لها ما أنا ديدي لها ما قف كلا ديدي لها سببت مركز ما محا دولة نفس كذا وحمد إنه وحمد سي ودق هذا كذا سمع كنو anyway أنا مهم جدا نقول وحاوي نما كذا لين رضا ودي جوده كنن وأنا نلاقي وصدق كسنة كير أو دور كوجيران وقاركود لقيا إنه سمولي قد بديه تجين إصدار لكن إلا عاوية أو حلا ترى أو دقالة الله أروريو أديك وكوجي ترى كوجا جروب كحجران لكن ده كالصومالي ده هلجو عيجليو أو محل يجري هلجو هلولو شيء إن ما كاس لين رضا أيجي جودية كنن قرية قاتل نما كاس أفك دوبان عدو جكار تجين هلو أروريو فانتازي قالوا قالوا marka waxa way taas loo baahan in ma tadalin waqti uu cirin laakiin maalin kali hooyooyin marka waxa way inta dhalinyaradiina inuu dhaliisho waxba dhinaca qabta leeyahay midda waa midda iyada wakeeda مامو نينا إيجا حكاجة ما لحنايا أدون كان أداء اللي جوجو والسكو أول شكتا هدا تي في إذا كان يدعوة وحكولين إن روش كبوحو قبصة ميلا ده بالكي أو أن جورجي إلى هاي إن جينا وحو قبصة بدأ مراكن كي إسكو هستان exactly وحكولين واي أن حقوق مقوني ويني واحد كان علين كرا ملهن إن نينك ماشي جوج أنا جا كان سنة دولة دن أود ملهن إن ملهن محلي جري ديارة أو عركة كادو قينايو إن مراكب كل دقة على ميسو عيدا marka muhiimadda waxa waaye meeshan awood military lagu kala baqaa awood military maanta tan jaanisa haysana anaga laba cadow waa leenahay waa labada cadow waxa wadamada dadkeena mid isaga isku mashquulsan oo anagiba waqti nooma hayo intuu asaga isku mashquulsan yahay inta ka faa'iideysano aan ciidan dhisano nin walba jaabka gacanta marka aragtaa waxa ku haysta anigu inay yihiin dowlad goboleedyada maanta aan leeyahay maamul goboleedyada way yihiin cadow laakiin si ciidan u sameeyso awood la imaaw kaama baqayaan waa muxuu ahaa waraaqa soo qortay kaagama baqayo laakiin markay ogaadaan intaan oo kun oo dhalinyaro oo ciidan oo ku soo socdo maamul goboleedka ninkiisa wuu iska tagayaa أحمد مدوبة مركو أرك إلا يصدق كون أو عيدنا أو دولة أو دلنيرة أو صوص عد أو وضد الجليب سواء قاضي أو كي إمال إنك بقى لو ولا كي إمال مو ملاني إنه سكي شوقي ما شوقي أنا waxaan ku soo gabagabaynayaa nina iga leexa kaaga ma leexanayo qofna kaam iga leexa kaama leexanayo qofka wuxuu kaaga leexan karaa awood inaad tusto oo awooddaadu arko maanta ciidan iyo
maamo run maartaa mise been dowladda hadda jirta ee uu hogaaminayo farmaajo iyo kheyre waxa la dhaho maamul goboleed iyo dowlad goboleed agtooda lagama qoro 2020 meesha lagu gaaray January waa in la helaa dowlad goboleedyo dowladda ku daba safan ninka ka harani waa la yaqaanaa kuwii kalena waa ku daayeen sama garnino laba arina hortaala dowladdan labadaas waxay tahay meesha lagu gaaro muxuu ahaa sanadka cusub ee January 22 in la waayo nimanka afka duuban leh oo dagaalamayo iyo in la waayo dowlad goboleed awood isbiday oo wadanka oo ka talinaysa oo dhahayo aniga muxuu ahaa waan ka hor imaanayo dowladdan haddii intaas ay sameyn weyso ayadana doorasho kuma soo laabanayso dalkaana dhibaatada kama baxayo marka waa ku salaamaya dadka la soo qabo maama waa mahadsantahay ما شاء الله تبارك ما دام dhalinyarada ahay dhalinyarada anu 15 jir baan ahay okay waxa wiilkan i wareeriyay jabhad hadda markaan qabsami weydo in adeer baaqulqule markaas intaas 3 jeer jaanis ka badan lagu siin karo male markaan ku siiyay hadda markaan ku qabsami waayo in adeer waxa gudbin lahayd waa kugu dhamaatay daahir socdaal aan arkayay markaa isagaan soo qaban doonaa raadin hadduu bixin oo ku jira daahir isugu wax yar qof baan wacay hadduu soo qabsado cabdiraxmaan adna waa ku soo qabanaa jabhadda waa kugu soo maqan yahay markaas ay soo qabay leedahay niyo say wax ka yihiin adeer ma ku qabsamay miya waaba ku jirtaa kaamirada waa ku furanta waa ku arkaa wuu kugu soo maqan yahay waan soo qoraysaa ay soo qabo taleefankaaga ma arag taleefanka balac u dhigo qabso haddaad 1 minute sakina haysataa haddaa qaban weyso daahir socdaalan soo qabanaa okay waa qaban weyday intaa ka badan waqti man ku siin karo in adeer uu dhacaya okay daahir socdaal caawa waxa weey looma kala haro sheer gareeya guryahooda ugu geeye ka farxiyo waay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كوسيا soo dhawow su'aalaha waa la socotay markaa soo gashay waa ku arkayay caawa la isjafaanaya caawa waxa weey Soomaalidu runta isma sheegtay bal runtaan raadinaynaa caawa su'aalaha qoraya xataa qof walba idiyadiisa waa qoraya awada arkay bahal buuga iyo bahal qalin aad ka soo qaadatay baan raadinaya marka bal ku soo adigana waad ku jirtay war ku sii horta odawaya fariin soo furay haye odawa wuxuu yiri inta aranjaniyo ay wadaadan leeyihiin ay naga adeegtaan dhigi maayo anigu qofka dhigi maayo leeyahay haye ma sha Allah okay ku soco marka sheek barnaamijka adoo galaysa waxaan rabaa in laba meel ka beegsado haye ninka la yiraahdo waxa naga qaldan waa inaan saxnaa waxa dadku ku mashquulsan inay isweydiinayaan waa inaan ka wacyi gelinaa aad wadaniyiin aan fooda la gelin adiga iyo wacyi wadanayba horta aad baan idinku mahad celinaya annagana waa sidoo kale ma weecdaanka birta aan leexan waranka aan la weecin ee nabad iyo nolol baatiin soo maydan garan intaa kadib waxaan rabaa inaan idin sheego wacyi wuxuu yidhi dowladdani maxay meesha la yiraahdo bangiyada ama waxa la yiraahdo xawlaadaha maxay lacag u saar weeday aniga caawa hadda qodobkaas waa arrintan la yaabay ma in cashuur laga qaado ama u malayn jiray aniga marka waxaan rabaa marka wacyi meesha horta waxaan uga mahad celinayaa damaqa ka haya iyo fikirka wadankiisa ka haya geeysiisay inuu meelaha ka fikiro waa maasha Allah tabaarakallah waxaan rabaa oon idin sheegay dadka horta weydiiya deetay inta aad hadlaysay codkaagu waa soo laba naqanayay dadkuna intaasay u baxayeen dadku mana maqlaan okay waay hadda anaga garanayo inuu soo laba noqonayo marka kale wacyi wadani baan dhigaha gashan waxaan rabaa anigu waxaan kala hadlay arrintaas aad baan uga fekeray sida wacyi oo kaleeto waa runtiis waa waxyaabo qofka ibnaadamka uu ka fekeri karo markaas waxaa noo yimid oo London noogu yimid ninka la yiraahdo wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta iyo Salaad Cali Jello oo isla socda noo yimid fariintaasaan faray aad bay u soo dhaweeyeen waxay yiraahdeen war waa fikir aad u wanaagsan waxa la arrinka dawladda hal la gaarsiiyo waliba shirka muxuu ahaa wasiirada ay yeeshaan khamiis walba hal la dhex dhigo arrintaas ay u qaataan waa iga qaadeen kadib salaadan wacay wasiir ku-xigeenkana waa wacay nin senator oo dhagdheer leeyahay waa wacay waxaan arrintaas
maxaa waa salaad cali jalle iyan soo wacaye waxaan ku horreeyay marka hore senatarkan ku horreysay horrey waa fikir fiican salaada u sheegto soo maha iyo wasiir ku-xigeenka ayagoo isla fadhiya soo waceen wasiir ku-xigeenkii aan weydiiyey arrintii ma gaarsiisay waa gaarsiisay shirkii aan dhex dhigayo maxay ahayd anigu qaabkan u faray marka waxaan ku iri war dalku maanta wax uu dhoofiyahay ma jiraan batrool ma dhoofino oo xoola ma dhoofino dowladdu leedahay oo berigii horeta garash borogram wax aan lahaan jirnay oo beeraha iyaga wax kasoo baxaan dhoofin jirnay waxaan tiya dahab aan dhoofina malayn wax dowladdu dhoofisa mala waa canshuurta caasimadda laga qaado dekada iyo airboortka intaasna kuma filla wax walba kuma filaan karto marka maxaad arrintan maaragtay arrintaas marka waxaan idhi hal barwaaqan haysanaa waa shacab waxa la yidhahdo waa dadkan haysanaa dadka jooga north america iyo dadka jooga europe ha uga badnaadeen kuwa khaliijka jooga waa iska danyar qurba joogtaad haystaan barwaaqa intaas haystaan marka waxaad yeeshaan qof waliba lacag buu xawilaa lacagta aynu xawilo anigu waxaan xawilaa bil walba ugu yaraan $300 baan xawilaa $300 waxaa layga qaataa boqolkii dollarba $6 layga qaataa maad tiraahdaan marka nimanka la yidhahdo hala sameeyo xawilaadu maadaama oo wax kusoo dhacayaan ha la yidhahdo waxaan rabnaa inaad shacabka ka qaadaan $4 nooga qaadaan afaran ka dhigay anigu meesha wacyi oo ka dhigay $1 waxaa la yidhi marka $10 xawilaada $100 ha lagu xawilo 14 waxay iskale dowladda ha ku daraano shirkadda sida dahabshiil oo kalena $1 ha ku darto $5 ha noqoto annaga marka $5 dowladda ha qaato $5 ha naga qaataano nimanka la yidhaahdo shirkadaha xawilaadda ha naga qaato sidaa $10 waa awoodnaa midna ma dhici karto qof walba akoon inta furto $5 bishii ha noo soo diro ama boqolkiiba 5 noo soo diro ma suurtagelayso qof bangi aadayo ma jiro sidii ayaa lagu dhex dhigay golihii wasiirada markii lagu dhex dhigayna waxaa la ii sheegay in dowladdu meelo badan ay ka fayrisay wiigi dambe iskugu soo noqdeen midaa soo baxaya marka taas wixii diidayaan idin sheegaa dowladdu waa istaajisay maxay ku ijaastay mataqaanaa waxay ku istaajisay meesha waxaa jooga niman usoo iibsaday kuraasta oo maamul goboleedyada u yimid in ay ka danaystaan xawilaaduna meeshay ku yaalaan lacag ay kusoo rogayaan waxay leeyihiin waa inaad anagana lacagtaas noo goysaan maadaama ilaan dowlad waxaan uma aqoonsana waa maamul goboleed iyaga dowlad kale isu qabay oo adogaya dowladaha xiriirka u jiray oo halkan shabaab markay ka qaadayso dowlad goboleedyadu ma weydiiyaan ma dowladda kaliya iyagu ay markay meel u dhaqaaqdo ay ka daba dhaqaaqaan meel nimankan marka ugu horreysay meesha waxay u yimaadeen kusoo soo fariistay dari meesha wuxuu u yimid inuu lacag ku helo waxaa laga yaabaa inuu ninku waxaa jira baarlamaanka waxaa yaala kursi la yidhahdo kursigii 1 milyan iyo 100 kun waa la yaqaana ninka iskale waa caan abshir buqaari yaa la yidhahdaa qarin mayno 1 milyan garay soo dhawaada calaykum salaam kullin waan salaamayna hadal baa socdo murti waxaan rabnaa su'aalaha isweydiinaynaa bointiyo fiican buu ka hadlayaa marka salaam qof kasta kama qaadi karo aad baan nii salaamaya 114 nin walba meeshaada ka qaado barnaamijka dhageysta u soco salaam nadiifaan ha idiin wada salaamay naga wada guddoomay salaanta anagoo isku duuban sidaa aawadeed marka waxay yidhahdeen niman kale marka waxaa jira baarlamaanka waxaa jira kursi laga bixiyey 1 milyan iyo 100 kun waxaa la yidhahdaa 1,100,000 la yidhahdaa la iskuma taataabto waxaa isku fariisana la yidhahdaa ninkaas wuxuu ka rabay 10 milyan uu ka rabay kursigaas ugu yaran ama sanadkiiba inuu 10 milyan ka soo kursigaas marka waxaa iskale nin la abshir buqaari maad salaada ku xigo 890 kulan waxa meesha jooga kaligood maahan waa kulligood nin kale aad aragtay oo miskiinka iska daro maxaa joojiyay tan tobigan u soo noqon maxaa joojiyay waa u soo noqonaya canshuurtii la qaado oo xawilaadaha laga qaado waa u soo noqonaya laakiin halkaasaan u soo xiro ninka ugu lacagta yar waa nin la yidhahda magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdi shire jaamac ciyaar jecel la yidhahdaa 80 kun oo siista kursigiisa dadku marka waa nin noocaas meeshana waxaa loo yimid waxa weeye wixii looga bartay baa meesha laga rabaa maxay tahay macnaheedu waad ogtahay nadiifoy meeshan kuraastan wadaniyad qof soo fariiso ma jirto lacag baa lagu bixiyaa lacagna wadaniyad laguma bixiyaan nin walba marka wuxuu rabaa conflict oo raadinayay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu markay isku dhacaan ninba mar loo tagi jiray war meeqaad siinaya 1 milyan haye ii kaadi marka waran meeqaad siinaya 8 halba adoo raaliya ku sheega barnaamijka aan wado caaw ka hadlayno waxa weeye waxaan raadinaynaa xagee meeshaan u socdaano meeshaan u socdaa laakiin taas baan rabaa bointigeena abaas taasaan u socdaa halkaasaan ugu soo degayaa waa buur aan kor ka saarnay marka waa degashadayaan dalcadiyaan maraa inaan boodo ma rabano marka waxaan rabaa inaan dadka say u fahmaan aan fahansiiyo soo marka
saasaa loo samayn jiray war ra-iisul wasaare meeqaad oo gashay 800 oo kun adiguna meeqaad oo gashay 1 milyan oo 1 milyan ninka jooga wax ma iigu daraysaa haa 1 milyan bar qaado oo 1 milyan saasaa loo xijray nimankii waa ka heshiiyeen waxay yidhahdeen shilin yaa laga qaadin saasay markaa musuqmaasuqiyaasay lagula dagaalamay maamul goboleedadii markaa maamul goboleedada ha u qaadanin in aysan ahayn sida waa ka daran yihiin qaraabataa la weliba ayuu inay dibad ka qaraabtaan ay rabaan iska daa kuwaan baarlamaanka dhexdiisa ka qaraabanayaan iyo madaxweynaha ra-iisul wasaare waxay rabaan inay dibad ka qaraabtaan oo imaaraad iyo adduun laga qaraabtaan rabaa waay aanu soo dhacdhac marka lacagtan nimanku lacagtii bay u yimaadeen dowladdu waa ka istaajisay musuqmaasuqa waa istaajisay xaal abuurnimo xataa xaal waa la abuuray waxaa jira waxa la yidhaha xaal abuurow maxaa tahay xaal abuur waxaa la yidhahdaa nadiifo markii meesha laga waayo in conflictiga laga sugaayey oo dhaalaan waayo waa la abuuraa dadaa xataa abuura waxaa lagu abuuraya masiirka magaalada muqdisho iyo haddii lay ku royahay etoobiya maaragtay badda laga giday iyo haddii lay ku royahay batroolkiyaa la iibiyey iyo saasaa loo iibiyaa marka taasina way socon weyde maamul goboleedadu marka lacagtan hadda aan sheegayno oo aan leenahay shacabku ka soo qaad $300 oo dollar markii aan bishii diro ee dowladdu ay heshay $5 $15 ay daahir socdaal ka heshay qofka halka $100 oo dollar dirana waxay ka heleen $5 war ciidanka war maxaan imisan qaban karnaa wax badan aan qaban karnaa laakiin iyagu waxay ka fikireen nimanku markii dadku markay sidaa la yeelo kuwii kale xawlaadi kusoo rogaya iyaguna dowlad ma aqoonsana oo wad ogtahay dowladaha xiriirka u goyn oo kuwa leh kuwa waa kuwa Kenya inay rabaan u hibeeyaan kuwa jaa waxay u hibeeyeen ba nimanka yiraahdo imaaraad marka taasaa lacagta joojisay doodaas anaa ka daba tagay taasay u joojiyeen nidaamka asiga sababtoo dowladdu waa tiitiri hadda kor nadiif inaad ogtahay in kala mooyaane lacagta aan idin siino caddaynteedii soo dira oo soo celiya si aan lacag kale idin siino conflictna meesha ka dhasho horta kow nimanka la yidhahdo dilay gureed waa dowlad goboleedyada marka maxay tahay sababta diidan dowlad goboleedyadu pointiga aan raadinayo maxay tahay sababta diidan dowlad goboleedyadu in ay dowladda la fariistaan ama ay xataa wadankii inay iyagu leeyihiin oo qayb ka yihiin oo iyagu wax ka dhisaan u diidan laakiin ay ugu arkaan farmaajo iyo xukuumaddiisa iyo xasan cali khayre iyo xukuumaddiisa bes inay wadanka leedahay meelaha kaleeto haddii wadanka ay soo ataagaan ama ay soo handadaan ama ay wadanka u cabadugleeyaan ay u aadaan ugu hambalyeeyaanoo ugu arkaan wadanka inay qoladaasu ay ku quman tahay qoladanuna ay qaldan tahay sababtaas bointigaas waayo waxaan raadinaya aad waa mahadsan nadiifa waxa weeye horta waxaan ka xumahay inaan dowlad goboleedyada dhahno dowlad goboleedyada waxaa jira qaar xalaal ah baa jira lafta gareen oo kaleeto nimanka maamulkiisa u yahay jira kala saaro waay iyo dowladdan dhexe iyo meeshaan shabeelle mee dowladda shabeelle ninka la yidhahdo ninkaas wuxuu bilaabay humbuq buu bilaabay aakhirkana waa arkay inuu ku fayo haddii uu kusii socdo war ninkaa hadda lafta gareen lama gaareen laakiin magaciisu haddii la wataayo waxyar waaya waxna banaankaa la dhigay waxna waa inoo dhiman yihiin laakiin kuwa diidan baan kuu sheegaya kuwa diidanna waa ognahay tiradooda yaaba tira badan hadda yaa badan waxa diidaya waxa ogol ilaahay mahadii bay ku dhacday waa la kala guray raggii gabre meesha ka samaystay dowladdii hore ay meesha dhigatay walaalay macaanay nadiifo ma shaqaynayso in ay soomaali u shaqeeyaan oo marka horeba laguma dhisin waxaa loo yimid hal waxbay u yimaadeen waxaa diidayaan kuu sheegaya nimanku waxay meesha u yimaadeen soomaalinimo iyo maamul goboleed inay dad u adeegaan una imaanin waxay u yimaadeen ka dhereg ka dhiso meelna ka dhigo wax la yidhahdo saddexdaasay meesha u yimaadeen adiguna waxaad iga baadi goobaysaa ama aad raadinaysaa in la helo cilmi nuurtarey iyo maxamed cabdulla xalane iyo haddii la ku reey maxamed siyaad barre iyo war dadkiibaad meesha ka raadinaysaa iyo farmaajo khayre iyo meesha ma joogaan nimankana meesha waa conflict waa laba u dhexeeyaan laba meesha isku dilaysa aan kufsado iyo meherso oo macnaheedu yahay danley daba dhilifa u adeegto danaha shisheeye iyo dalka annaga iskale labadii baa meesha isku haysaa waana waxay rabaan waa wax lasoo marayo 28 sana lagu socday marka taasaa keenaysa in aysan arrintaas raacin laakiin dagaal baa shacabkii soomaaliyeed baa dagaal kula jira caawa maraan live ku jiray dhalinyaro kasoo hadlaysay qardho oo ay dad ugu xigo dani wallaahi iyo bilaahi nimankaasay u hadleen waxay yidhahdeen ceeb iyo haddii lay ku reecanaysa ceeb iyo lugooyo iyo dhibaata intaasaan ka dhaxalnay laakiin waxaan ballan qaadaynaa in uusan na sii dhex joogin marka dadkii soomaaliyeed baa maanta nasiib wanaag isku dhinac u dhaqaalay iyaro adaa ku haysata dhinac inkastoo xoogaa maaragtay wadan
dad waddanka iibinayo waddanka qiimo lalahayn uu jiro ma waxaad leedahay waxaa jira haddana dad maaragtay in shacabkii iyo dhalinyaradii ay hadda xoogaa waddankoodii arkeen oo dhinacna xoogaa rajaa jirta maad leedahay xoogaa maaha boqolkiiba 85 baa dadka Soomaaliyeed dantoodii gartay wayna daaleen dowladnimayna u baahan yihiin meel waxna waa u sheegaya inta dhiman waxaan u sheegayaa qabyaalad baan ugula qaybinaya laakiin qabiil jeebadiisu ma buuxiso mujtamac isla markaasna qof danley ah oo daba dhilif ah jeebadiisu ma deeqi karta qabiil dhan xataa haddii qabiil la yidhaahdo dowlad jeeb sug halkaas ii kaadi marka waxaan kuu sheegaya gabadha xabsada dhao su-aal bay ku weydiisay waa gabar wadaniyada oo midnimo qaran group ka tirsan waxay tiri waxaad sheegtay dad badan inay lacag badan kuraastu lagu doonto waxay ku weydiisay marka sidee dadkan xildhibaanadan lacagta badan iyo xilalkan lacagta lagu raadinayo iyo waxaad ma leeyihiin mase laga hortegi karaa mase laga daba tegi karaa maxaa iyaga su-aashaasay ku weydiisay maya dowladdan meeshay joogtahay inay laaluush bixiso ma ogola oo ay baaqiga u celiso waa qodobka labaad haddii loo celiyo hadda ka horan waxaa la hadlay xasan cali kheyre waxaan ku uri xasan cali kheyrow maad ninka la yidhahdo nin la dhihi jiray waxaa soo baxay waxaa la yidhahdaa waxaa la dhihi jiray mahadoolar ninkii ugu horreeyey oo dowladda isgacan saaraan buu ahaa markii farmaajo kheyre yimaadeen waa tii magaalada muqdisho la yidhi ha laga saaro hubka nin marka waxaa jiray jenaraal ah oo cabdullaahi yuusuf uu uga tegey oo suuqan la yidhahdo madiine canshuur ku qaadan jiray 8 gaari oo watana muxuu ahaa jabiil aad baa iyadana u salaamaya ninkaasi marka wuxuu ahaa jenaraal buu cabdullaahi yuusuf baa jenaraalnimadii siiyey nin dhalinyaraha oo ah reer gaalkacyooda oo weliba koonfurta gaalkacyo ah ninkii meeshii ayuu iska haystay cabdullaahi yuusuf waa uga tegey sheekh shariif waa ugu yimid waa uga tegey waxaa u yimid xasan sheekhaa uga tegey kheyre farmaajo yimid waxay yidhahdeen magaalada muqdisho waa inay hubka dhigtaa waa tii la diiday waxaa la yidhi waaye hubka waaweyn laga saaro hubka waaweyn dadku leen jiray gaari baa ku dhaafaya dadka daba ordo baasuu kugu fura hadduu ka horeyna dad ka horeysan iskaba dhaaf marka ninkii yaa loo tegay waxaa la yidhi canshuurta suuqa ma qaadi kartid mahadow hadoodhan waa generaal waa nin dhalinyaraa baabuurtaana waad ka saaraysaa magaalada mayou yidhi 2 wiilgaa la baryayay markii dambe dowladdii isgacan saareen hubkiyaa lagala wareegay 2 wiilna waa laga dilay 18 waa la qabsaday cabdi qayb diida hadlay wuxuu yidhi baabuurta waxaa iskale galmudug ee gaalkacyaha la geeyo isla markaasna ma hadna hala soo daayo waxa xirana hala soo daayo may maqle waxaa la rabaa marka su-aashaadu siday ahayd baan doonaya waagaas waxay ahayd waagu adduunku qasnaa hadda oo dowladda aynu aragno rajada socota aynu aragno wax muuqda oo jooga oo aynu aragno meel fiican oo la marayo maxay tahay sababta u diidaysaa dowlad goboleedyada iyo dadka qaarkiis in ay gumaysi doortaan waddanka iyo wada shaqaynta iyo waddanka inay hore u qaadaan oo waxooda iyagu halkan dhigaan ka hor istaagan maxay tahay taas waa mahadsantaa su-aashayda markaan waan raadinayaa welina ma hayo waxaan rabaa inaan fahanno waxaan nimanku aaminsan dadka waxaa tiri kelmadaada waxay ahayd gabadha su-aasheedii oo ahayd ma la maarayn karaa waxaan ku yidhi marka war ninka idinkoon la dagaalamina oon hubka ka qaadina oo aan xirina maad maaraysaan maxamed siyaad barre wuxuu samayn jiray safiir siberia uu diri jiray maa liberia kan u dirtaan siberia ruushka ku taala yaa liberian africa ku taala maad safiir inta u magacaawdaan iyadoon laysdilin maad liberia geysiin oo aad tirahdeen 2 sano kabacdina wax asada damata wuxuu yidhi musuq maasuq iyo been waxba kuma dhismaan haddaan lacagta siina maxaan askarta iyo shacabka siinaa howli nimanka marka lagama kuraastii deynta ay kusoo galeen looma celin karo oo waa musuq maasuq nimanku yeeli maayo taas waa horta intaas wey halka taasan kusoo xiraya nimanka damacooda walaal lafta gareen ninka la yidhahdo cabdiweli gaas maaha cabdiweli gaas iyo shariif sakiin iyo ninka la yidhahdo deni iyo axmed madoobe lafta gareen waxay leeyihiin waa gulwada waana doqon sababtoo ah dalkiisii wuxuu u ogolaaday dowladnimo annagaa ka fiican oo dabadhilefo waxaasaa lagu faanaya 28 sannadood baa lagu soo jiray laakiin iska dhaaf mas-uulka shacabkii baa maanta kacay gidi ahaan waxay aaminsan yihiin dadku maanta say u badan yihiin aan sheegaya in yaroo anyaanyufa marka laga raabo dalka inay leeyihiin dadku dowlad inay doonayaan oo ay dal aan la haysan karin dowlad la-aanteed qofna kama qarsoona waxaa maanta isbedelada dhacay waxaa kuu soo horay ciidanka adeeta oo yiri walaalkay wiilka yaraaye ninka la yidhahdo wacyi uu yiri wuxuu yiri ciidamada dhismahooda iyo meesha in laga soo dhaco meesha la yiraahdo bu'aale horta bu'aale waa lagu soo socdaa oo ku bashaaraysta horta
buu ale afka lagu soo hayaa maxamed cali waa waxayna noqon soo qabanaa insha allah aadna waan u salaamaya maxamed cali naftarkeyga waa aad baan usoo koobaya asigaaba iiga sii warrami doona buu ale isagaan u daynaya nin ba waxbaa loo daya buu ale waxaan u daynaya maxamed cali mana seegi kartaan halkaa isagaa ka warramaya waxaan idiin sheegayaa ciidanka midaan idiin sheegaya marka horay ciidan uma aynaan lahayn haddaan reey mala yaabaysaan haddaan idinku iraado ciidan maba aynaan lahayn marka farmaajoya kheyr yimaada waa la yaabaysaan 3 ciidan baynu lahayn dadku laakiin waa nala yaabayaan dadku laakiin waa nala yaabayaan magaalada muqdisho oo caasimadda 3 guutay lahayd wallaahi bilaahi maxaa la odhan jiray mataqaanaa guutada abgaal guutada murusade iyo guutada habargidir ma ciidan bay noqon karaan ilaahay baan kugu dhahay iyagaa la kala haye iyaga qudhoodaa la kala leeyin waa qabaa'il ciidamada sidoodaba ciidan marka la dhisayo waa inuu factor ciidan yeeshaa iyo meel ciidan ka soo baxaan oo ciidamo akademigo ay joogaan akademiyad baa soo saarta ciidan mana aynan lahayn muddadii sida ay u burtay akademiyadii la oran jiray akademiyadda ciidamada ee jaalisiyaad ukunna haddaad maanta 100 xabo soo iibsato oo aad maalinba mid karsato waxaad 100 maalmood baad karsanaysaa 100 maalmood waa 3 bilood iyo 10 beri macna ma samayso waa ciidan in la helaa meel uu ka soo baxo ciidan kasta oo lagu soo tababaro maanta waxaan yeelanay 252 sannadood akademiyad ku jiray oo saraakiil iyo saraakiil xigeen ah waa markii ugu horeysay oo ay noo soo baxaan turkiga ay u yimaadeen xasan cali kheyre iyo farmaajo markay 6 bilood joogeen intaas 6 bilood waxay dejinayeen xageen ciidan suufan kala odayaasha waa gaboobeen dadka hore waa shubeen ما مقشان هذا ولا كل بيسو ولا تلفون كود وضع هذا ما مقشان هذا ما مقشان ما شاء الله ها سفي عن وهذيك مركا ما أنت وحين إذا لما بقول إيو كنتم سراكيل إيا سراكيل حجان أو akademiyadii ciidamada ayaynu maanta leenahay oo soo saari doonto isku waran jirta ciidanka cirka ciidanka badda iyo ciidanka dhulka intaba iyo intaasoo kumandoosa haddaan ciidan bilownay akademiyadiina dib baa loo furaya waayo akademiyadda macalimiinta ka dhigaya maanta waa helnay horta ku bishaaraysta taas ka hor maynaan lahayn baan ku iri cabdullaahi yuusuf ninka la yihahdo dilku sheekh shariif xasan أنا أراد واد ذا أراد لكن فكر كان ما يهل إذا كان نوتا برا كوانا نوتا برا إمارات كوانا نوتا برا وحسن الجوشري تركيا وحنا لكن لما فكرين عيدا الصوماليات أكاديميات وكسب عيدا أكاديميات أو صوماليات ورشد عيدا رشد أكاديميات عيدا ماذا ما إن الله ما أنتن يلنا عيدا حلال ما أنتن لنا عيدا كان هرب حودا ما أنتي وجد نظيفوي ay dhacday ra'iisul wasaaruhu uu yiri war wixii diiwaan gashan oo ciidan Soomaaliyeed ah mushaaradoodu waa naga wada haystaan waad ogeydo 2 bilood niman ay lacagti ka maqneed oo aan la diiwaan gelin ayaa ka soo baxay cadawga dhufaysidoodii ka soo baxay iyadoo qabyaalada ku jirto aaway cadawga dhimay aaway ciidankii waxa lama rabo sida danabo kala raba sida odawaayo kala raba maantaan rajo leenahay ciidankeena salku dhigay hadduna cardaadqaha ka dhigaya cadow kasta oo aan leenahay waxayna leeyihiin mindhaa doorka maanta duhur meeshi aan maro cadow kale ma soo dego haddaan dhaqaaqnay niyad yeesha saas aan dalkeena isu garab istaagno qabyaaladii jeebad nooma buuxiso dowlad nooma dhisto wax isu keena waa dowlad jeebad dowladeed baa lagu dhergaa oo deeq laga helaa oo nabad laga helaa oo waxbarasho lacag la'aan laga helaa oo dawo lacag la'aan laga helaa oo baaris lacag la'aan laga helaa oo sharaf lagu helaa oo lagu helaa faan iyo qab iyo qiimo ee aan taas beegsanno intaan qofka danleyda ah oo reer hebel ah oo annaga ah aan raacayno aniga xasan macallin waa iska dhacshay nin walbo ninkaaga iska dhici marti ha ugu noqonin xaqaaga qof adiga kula mid oo isku qabiiltiin qabiilkana marti ha ugu noqonin kaama xigiye dowladnimada Soomaaliyeedna marti ha ugu noqonin kaama xigiye khayre igama xiga aniga dowladda Soomaaliyeed khayre waa shakhsi murusadana igama xigo dowladda Soomaaliyeedna igama xigo
mas-uul weeye wuxuu la yimaadana wallahi kula dhaqmaya hadduu sharaf ummadda soomaaliyeed ku wadana waa garab istaagaya haddaan ku arko dalgad badgad diingad dumargad inuu yahana waxaan leeyahay war iibin maysa sida xasan macalin oo kale inaan adeerkayo 10 jeer isaga iga sokeeya intaasna leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa war aan laabta isku qabanno war aan laabta isu xaarno war aan isjeclaano war aan halka qabiilo saxda isku tagno Soomaaliga aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba walaalayaal maasha hadii allah amadoon aad iyo aad dalka baad annaga iskale umahadsantahay wax badan baad falanqaysay wax badan baa maanta ka adoo kale aan u baahannahay in sidaas dadkiina waayo aragga oo maaragtay odayaasha ah ay markay meelaha soo galaan sidaas bal u kala dhigdhigaan waxa dadka fahansiiyaan dad badan baa waxaan ku wareersan oo aan ka mid nahay marka aad iyo aad baan ku waday anigu mar kastana waxaad ii tahay salaan saluto salaan baa kuu taagaya allah sida dej Allah ku sharaf wax la wixii muran ka galan soo waca insha allah aad baan ku salaamaya waad mahadsantahay ka qaad maxamed cali maxamed arcaaw dad culus baa iigu jira ilaahow ii barakee armacaa aniga garab aniga horta moogtahay baalalaan yeesho ya dhalinyaro iyo maaragtay caqilo iyo garbahayga saasay u buuxanaan ku dhahay xidigaha dadka lagu taxo aniga kuwa qarsoonaa igu taxan wallahi billahi baalal baan leeyahan ku dhahay dhalinyaradii aan meel walba u gelaayay maasha allah waxa ii soo gala waa iyaga waxa buubiyo waa iyaga waxa dhagaha ka garaac waa iyaga boqorradii geesayga taagan yihiin waxaan leeyahay guuliga gobonimo maxamed cali soo qabso guulaystaa in leeyahay barnaamijkana sheer gareeya war barnaamijka sheer gareeya maasha allah tabaaraka allah maxamed cali waa kana war aniga waa aragt war aniga nimayo war wadaniyada iska jeclaada war qabiilka iyo waxaa xagga iska dhigta war waxaanayto markaan guursanayna iyo markaan gabar doonayna iyo markay gabadhu nafkeedu nin rabto inay guursatay markaas odayada ha loo yeero qabiilka markaa ha shaqeeyo inta kale bakin noo geliya war garabada buuxsada dhalinyarada inta iska dhiga caaqilada inta iska dhiga ragga sharafta leh maxamed cali qabo maasha allah tabaaraka allah war guushu waxa weeye waa gacmaha guushu ma aha qabiil walaal waa ku soo qabanaya walaalkay maxamed cali ku maqan yahay waan maxamed cali aan sugayaa marka aad iyo aad dhalinyarada waxaan leeyahay allah barakeeyo sida wacdi oo kale caaqilada allah barakeeyo maaragtay war maasha allah war nimayo wanaagga ha laga shaqeeyo wanaaggu wax badan buu taraa qabiilku waxa weeye colaad buu ku geliyaa ummaddu kaa fogeeyaa kalsoonidu kaa qaadaa laakiin maxamed cali ow waa ku soo wacay maba aragtid miyaa kugu ceshaaye maxamed cali maxaa kaamiradu waa xirtay miya maxamed cali ka bax kusoo noqo kaamirada yaa xirtay haddaa waa kuu furayda intaa baxdo soo laabo caaw laguma daynaye maasha allah wallahi billahi aniga baalal war sidaan iska jeclaada nimayo waa ini soo qabanaa kulligiin waa ini soo qabanaa maxamed cali oo maxay kaamirada maxaa ku dhacay way kaa xirantaa weli intaa ka baxdo beydkayga ka bax kusoo laabo walaalkay ka bax kusoo laabo dad badan baa waa maxamed cali idinku horeeya isagaan qabanaan ka dambaa ku xigaysiin walaalayaal aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa aad iyo aad amaal oo war qof culusaa ku jirto waa ku salaam boqoradda waa ku salaamayn adeer war caawe waxa weeye haye bal haddana fiirina sugbal maxamed cali maxaa caawe muxuu ii diidan yahay muxuu iiga boodaa maxaa caliyo caawe maxaa dhacay in adeer weli kaamiradu waa kaa xiran tahay maxaa see dhahday kaamiradu weli waa kaa xiran tahay maxamed cali kaamiradu weli waa kaa xiran tahay qofkanaan soo qabanaa soo furo bal soo furo caawa laguma daynaye waa lagu soo qabanaa waktigay rabtaa igu qaadatee bal soo fur ka bax kusoo noqoba ka bax kusoo noqo war caawa warku waa badan yahay caawa buuggaasaan u haystaa bal waxaan inaan isweydiino waay dadka maskaxda inay furfuranto waay hadda daahir socdaaloo kale maasha allah tabaaraka allah wax badan buu faaqiday wax badan buu sheegay sheekada meeshii ka jirto uu sheegay ilaa iisoo qabatay bismillahi raxmaan raxiim war maxaa haysta ninka war ma bukaankii baa hoosta kaa haystaniyo waa kuu soo galla'yaye waa iga xiran yahay maxaa dhacay war maxamed cali oo uu ku diidan yahay bal ka baxe demiya daar taleefonkaaga demi daar soo gal marka lifeka waa lagu haystaa niyo codkarinaa taa la ogyahay adigaa la diidan yahay inaan soo qabsato bahasha inaa buufisaa la diidan yahay wallah ya bal ninkan aan soo qabtay inta maxamed cali waa lagu dhegay
aw qofkii kalena wuu iga booday maasha allah tabaaraka allah war wallaahi bilaahi waxa weeye aynu isweydiino bal maxay tahay sababtoo waa karaamo daraan u arka anigu anoo gabaraa karaamo darro u arka marka in raggaygii uu niman iyagoo kalaa u ordo cusmaan baan soo qabana bal intuu maxamed cali soo gelaayo wareedha ani may kaamirada iga xiranta waa yaabe dadka dhan kaamirada ka wada xiran maxaa dhacay afka calina waa ka xiran tahay maxaa qaldan ka baxa kusoo noqda bal ka baxa kusoo noqda waaba diidan yaha kaamiradii usron bismillah war way xirantaa u malaynaa kaamirada bay ii furantaa aniga maaqan waxa idinka idinku dhacay qofkaan soo qabtaba kaamirada ma furu ileeyahay war waa lay galaa u malaynaa dad bay dhibaysaa moogtahay afka cali waa kaa xiranta adigana abow ka bax kusoo noqo daahir socdaal way u furayda waa maxa amaal waa ku salaama ina adeer waa ku salaama boqoradayda waa ku salaama walaashay soo dhawow caawa leefkaygaaba ku jirtaa soo dhawow waa ku salaamaya waxa weeye wadani war waxa weeye dalka inagaa iskale war nimayow qabyaalada waxa ma sheegta anigu meel kasta waa la ii taagan yahay boqorad baana boqorad wallahi dadka laandheer ma ku faani jiray anaa laandheer idinka wada ah kulligiin war ilaahay war maxaa ii galay qof ii qabsamaayo male qof kasta kaamirada ka xiran cusmaan jamaal waa ka xiran tahay war ninkanaa la diidaya inaa soo qabto heedhe maxaa caliyaa la diidan yahay umalayna codkartaa la diidaya codkarta bismillaahi raxmaan maxaa ka qaldan waxa wallahi meel ii furan male what's wrong maxaa qaldamay kaamiradu waa iga xirantay bal suga nimayo bal suga aan barbaare meesha waaba iga qasantay sheekadii fiicneed waaba iga dimi rabtaay maxaa waay war maxaa qaldan bismillah kaamiradii iga xirantay aniga dhinacayga miyaa qof ii soo qabsamaayo ma laha walaalayaal maxamed caliyaan rabay waxaan rabay ka bax adiga kusoo laaba waa ka baxaya waa kusoo noqonaya looma kala tegaya caawa indhah maxamed cali ha bixinina intiina ay soo qabana waa ini soo qabana caawa warku waxa weye waa culus yahay xilligaa waxay soo jeediyey waxa weye wax badan inaa isweydiino waaye aniga iga xirantaa u malayna waa ka baxaa waa kusoo noqona haddii maxamed cali hadda u qabsami weydo marka horaan ka soo gelaya intaa hala ii dulqaato qolyihii baa maxamed cali ka naxeen maxamed calaa wadnaha gooye dadki kaloo dhan waa la soo qabay markaan dhahay maxamed calaan soo qabana waa la yaacay marka ha teginina waa ka baxaya waa kusoo noqonaya idinkoo mahadsan raalli ahaa